midda labaad islaamku hal mar lama soo dejin marka dib ugu noqoto islaamka 14 iyo boqolka hal maalin lama soo wada dejin maraaxil buu soo maray tartiib baa loo baahan yahay dacwaa loo baahan yahay wacyigelin baa loo baahan yahay dadkii waxaa loo baahan yahay maaragtay islaamka horta bal inay fahmaan laakiin ka wax u sheegaya iyo ka loo sheegaya ee khaladka ku jira inay kala soocan yihiin baa wanaagsan nimanka hadda qolkan iska leh oo jamaacatul islaamiya la yiraahdo waxaanu ka maqalnay ama ay noo sheegayaan ama ay mataqaanaa ficiladooda ama dhaqankooda kamid ah inay marka hore bal iyagu ay muslimaan oo wixii islaamku u ogolaa ay qaataan marka waxaa la kala garanayaa dadkii mushrikiinta ahaa ee muslimiinta ahaa iyagii baa la kala garanayaa caqiidadii lagu kala garanayaa kadib markii la kala garto bay dadkii dacwaddii ugu yeerayaan marka waxaa dhacda dadkii hadday markaa dacwaddii qaataan islaamka ay qaataan meesha inay qarya islaamiga noqoto muslim ay noqdaan oo hadday xukuumad iyo dowlad iyo nidaam ay gaaraan sida markaa isku maamulaan oo dad meel taagan oo mataqaana ay noqdaan ilaahay uu raalli ka yahay oo kula raalli noqday wixii allah uu raalli ka ahaa islaamku markaa saas u bilaabmaa marka hal mar wax soo wada dega maaha marka koox yar inta Soomaaliya dhexdeeda ka samaysanto iyagoon dadkiiba laga garanayn oo dadkiiba horta iyagu aan ka sooxmin oo aan ka baraa'a qaadan intay laayaan ay dhahaan haddana islaam baan ku xukumaynaa hadduu warran iyo islaamka anigu aan haystay kaad igula doodayso waaba isku mid ah xaggee ii dilaysaa wey arrintu oo hadda ninka intuu kasoo jilib kasoo ordo oo madafac kasoo raro oo suuqa bakaaraha keena ku qarxiyo ama lambar 4 keena intuu ku qarxiyo hadda kuwa ku qarxinaya ee ka qarxa waday kulli waa isku wada mid waxa lagu kala garanayo lagu kala soocaya male marka maxaa horta isdhaama dadka horta waa inay ogol yihiin in marka iyagu muslimiin yihiin oo shuruucda islaamka u hoggaansamayaan oo muslimiin yihiin oo kitaabka iyo sunnaha ay dabaqayaan oo lagu yaqaan in dad muslimiin yihiin marka dadka muslimada u sheegaan laakiin nin isaga dhanba ku sifaysan yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun leh oo arrintaa ku sifaysanba wuxuu isagu uusan macnaha uu ku dhawaaqayay aan samaynaynin oo aan ahayn iyo wuxuu uu samaynayo kulli waa isla gubanayaan waxaa yeelay marka asalkiiba fasahaad ahaa oo asalkiibaan sugnaynba marka qofku markuu asalkiisu inuu sugnaado weye markuu isagu sugnaado kadibna markaa dacwo dadkii uu gaarsiiyo waxyaalaha ka dhadhacaya ama macsida ama khaladaadka ama gefka ee shakhsiyaadka ama hadday rama samca baa uga dhaceene oo aan gaalnimada ahayn taa axkaam gaaray leedahay oo haddii qof muslim qof dilo oo nimanka hadda jamaacadda islaamiya hadday magacaan la yirahdo haddii qof mid uu qof dilo ama uu macaysaysto ama uu khamri cabo lama oranayo dadkii wax diinta noogu yeerayay oo dadka diinta ugu yeerayay mid khamri cabayaa la arkay maaha qofku macsi uu ku dhici karaa toobad baana u furan haddii xukuumad jirta ama maamul u jirana sidii laga yeeli lahaa ama qaabka dadka loola dhaqmi lahaa taas waa gaar laakiin horta waxaa la rabaa dadka inay marka hore iyagu ay muslimiin yihiin oo hoggaansan yihiin oo dad muwaxidiina yihiin oo mukhlisiina oo allah subxaana watacaala diintiisa raallida macnaha ku raalli noqday wixii uu ku xukumay oo dawcan wakarhan ku qaatay macnaha wax markastaba inaad raaxa ku jiraysa maaha marbaad dhib maraysa islaamka galaysid waxa weye waa sunne oo marbaad mataqaana dhibaatoonaysaa marbaad raaxaysanaysaa islaamka waxaa daliil u ah si maraaxisha ay islaamka uu soo maray iyo qaabkii rasuulku markii la soo diray uu soo maray iyo si markii dambe saxaabada ay noqdeen u barwaaqoobeen xukunka ay u hantiyeen anaa 10 sano kaliya haddaad dib u fiirsato ay madiina joogeen 13 sano haddaad ay maka joogeen 23 sano taariikhdooda haddaad fiiriso ama aad dhageysato waxaad arkaysaa islaamka taariikhda soo maray baad arkaysaa marka waxa weeye waxaa faham wanaagsan qofku marka hore islaamka inuu fahmo markuu islaamka fahmaba wuxuu fahmayaa wax hadda socdana uu arkaya marka inaysan shaqo isku lahayn oo wax taraaqudaad oo iska hor imaanaya ay yihiin buu arkaya kuwan xaqa ku dhawaaqaya oo la jihaad baanu wadnaa iyo kuwa ay laynayaan oo ku jihaadayaan inay isku mid yihiin baa kuu soo baxaysa marka midda kale ururadan faraha badan oo maanta caalam islaami dalka waxa loogu yeero ka jirana waxyaalaha siyaasadaha ku dhex jira macnaha labama kala yaqaanba يعني مر waxaa jiri jirtay nimankan westernka ama reer galbeedka intay nin sameeyaan aan la aqoon ama baqdaadi ha loo bixiyo magac kale ha loo bixiyo oo meel taagan inay dhahaan waa mujaahid dadku la dagaalamaya marka isagu uu dagaalamo oo macnaha lagu soo dabo ama lagu soo ururiyo dadka muslimiinta sheeganaya hay'adaha ku taliyay dadka qalbigoodu jibeysan yahay jihaadka jecel ama muslimiinta in la laayo laakiin dadka hadii meel aan la isku keenin si fiican loo layn karo malaha marka waa in meel kale meel la isku keenaa marka nin baa lagu dhawaaqaya oo wuxuu leeyahay muslim baan ahay dagaal buu galaya qarxiyo sameynaya meel baa la gelaya kadib marka waxa dhacaysa in dhalinyaro fara badan oo qalbigooda jihaad ka dhawaaqayo oo iska ooyinayo jibeysan intay u tagaan meesha isku ururiyaan kadibna marka bam la dhaco la laayo sida ka dhici jirtay Syria iyo Iraq dhexdooda ka dhici jirtay oo kale
ومركا laga yaabo 2,000 qof markii oo meesha in lagu dilo oo macnaha dhowr kun qof hal meel lagu baabiyo oo marka la waayo wax diinta qalbigooda macnaha diinba ay gali karto la waayo oo laga carro diinta ay noqoto wax laga carro lagu gubanayo ay noqoto rag baa sidaa ku taliyay hay'adaha sidaa ku taliyay wayna sameeyeen magaalada raqal la yiraahdo agaarkeeda waxa lagu dhuftay baa la yiraahdaa ilaa 400 oo tomahawks gantaalaha adduunka ku qaalisan oo Mareykanku uu sameeyo way oo macnaha infected ay isticmaalaan yacnaha operationada lagu fuliyo oo halkii gantaal baa waxa laga yaabaa inuu dhowr milyan dollar yahay macnaha waxa uu baabiinayo haddana waxay ku dayarsadeen inay 400 oo kaliya ku dhufteen agagaarkaas waxa lala dhacayna dad shahaado doona bay ahaayeen oo meesha lagu soo ururiyay laakiin nimankii hogaaminayay ee magacyada lahaa ilaahay hadda lama yaqaan meel ay ka yimaadeen lama yaqaan meel ay aadeen lama yaqaan marka ugu dambeysana waxaad maqlaysaa waa la dilay ama bad baa inta Xusaama bilaada baa inta la qalay bad baa lagu tuuray hilibkiisa maqlaysaa marka horta meesha siyaasado badan baa saddex fooshan oo ku dhex jira balse waxaad ogaataa taa kale ee mataqaanaa siyaasadaha guud iska badaa balse middan kaliya oo macnaha dadku ay ku ordayaan oo ay leeyihiin macnaha waxbaanu kor u qaadayna diin baan kor u qaadayna horta iyagu maxay yihiin iyaga iyo ummadda kale maxaa lagu kala yaqaanaa horta